sida la wada socotaan baryahan dambe waxa wadanka ka jiray madaqadeena Somaliland cabasho ka timi shidaalka ha ahaato shidaal oo yaraaday amaba shidaalka tayadiisii oo xumaatay sida darteed hadii aanu nahay shirkadda Som Petroleum waxaan doonaynaa inaan caawa shacabka reer Somaliland ugu bushaarayno in shirkadda Som Petroleum ay wadanka keentay shidaalkii la sugayay taas oo markabkii siday uu soo xidhay maanta oo taariikhdu tahay 20 bisha shanaad ku soo xidhay dekada Berbera shidaal tayadiisu sarreyso waafaqsan shuruucdii wadanka u taalay ee ahayd laga rabay shidaalka wadanka imanaya shuruuduhu lahaan lahaa taasna waafaqay waxaan kaloo ku faraxsanahay in shaybaadhka kaydka haamaha shidaalka ee Berbera isaguna uu controlay shidaalka una soo daayay oo fasaxay shahaadadii kale caalamiga ahayd ee lagu shaybaaray nawataas dibadda ka timi markii hore lagu soo shaybaaray waxa weeyaan markaa waxaan dadka u sheegaynaa in laga bilaabo berrito taariikhda 22 hadii Ilaahay ka dhigo inaynu ka haqablaanahay shidaalkii haday tahay xaqii mugiisi iyo haday tahay xaqii tayadaba waana idinku bishaareynaa waxaan inta wixii aan dhaafay ku wareejinayaa halwadeen kamid ah hawlwadanada shirkadda Nasir Ismaan ayaa wixii aan dhaafayna insha Allah ta'ala oran doona shirkadda Som Petroleum muddo dheer buu adeegaysay shacabweynaha reer Somaliland muddada ay u adeegaysay waxay ugu adeegaysay si hufan isla markaana iyadoo dalka keenaysay shidaal tayadiisu aad u sareeyo tusaale ahaan shidaalka imakaan keenay oo runtii ku soo beegmay waqti baahi weyn loo qabay waa shidaal quality-giisu iyo tayadiisu gaarsiisantay 95 premier kaasoo kaba sareysa standardkii looga baahnaa amba wadamada jaarkeena ay ku qiyaasaan taas waxay ku tusaysaa ahmiyadda iyo dadaalka ay ugu jirto shirkadda Som Petroleum inay dalka reer Somaliland keento shidaal lagu kalsoon yahay oo tayadiisa la hubiyay sidoo kale waxa farxad weyn oo ah oo runtii approve gareeyay markabkani marka maanta shumay laabka waxaan u waafaqsan yahay tayada shidaalka ee haamaha Berbera ee Somaliland saasoo kale waxaan ugu bishaareynaa shacabweynaha Somaliland meel kasta joogaanba laga bilaabo Britole inay heli doonaan shidaal tayadiisu sarreyso runtii in aad looga soo shaqeeyay taasina waxay u tahay bishaaro iyo maalin taariikhi ah oo ku suntan shirkadda Som Petroleum aad u mahadsantii